ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa booqasho ku yimid gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota. Wuxuu booqday labada mool oo ay ku ganacsadaan Soomaalida degan gobolka, Carmel Mall iyo moolka 24ka. ترتيب ابو كلح برادر هذا ما اعرف من حيسو قالوا يمكن انا وقت معي محمد زين Yeah, there we go, the guy. سلو أركو. طلعوا له سلو أركو. غير فرق. مستقبلك إن شاء الله كورتين الناس هذا إن شاء الله. ما بسكت منك هذا قلال سعودة. عبدين كله. أبو خلحني دوبي كله waqtigii yaraa ee aan la socday ra'iisul wasaaraha waxaan arkay oo dadka intooda badan u wada muuqatay in uu yahay nin ay Soomaalidu qiimayso oo ay jeceshahay. ra-iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu Minnesota uga dhawaaqay xisbi cusub oo la magac baxay Tayo. waxaa la socday oo Minnesota la yimid qaar ka mid ah golihiisii wasiirada. Soomaali fara badan ayaa soo buux dhaafiyay hoolkii shirka lagu dhigayay. dad badan ayaa taagnaa, qaarna dhulka ayay fadhiyeen, halka qaarna ay u suurtageli weysay inay gudaha soo galaan. waxaa loo weydiiyey mid in la dhagaysto khudbadda ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
haddii la rabo in Soomaaliya la dejiyo oo la xasiliyo waa in la ogaadaa shakhsiga ay shacabka rabaan laguna qiimeeyaa